يوسف maalinta isniinta lagu wadaa inay dhacdo doorashada guud ee dalka Kenya xildhibaankii degmada Kamakunjina waata in kasto aad hadda isbitaal ku jirto maxay kula muuqataa xaafadda Islii maalinkaas hadii ay wax rabshada ka dhacaan wax ku talagal ah oo ka dawlad ahaan ama ka maamul ahaan aad u samaysateen ama abaabul aad samayseen ma jiraan oo looga gaashaaman karo hadii dhibaato ay dhacdo way jirtaa anigu ma filanayaba wax dhibaato inay ka dhacayso maalintaasi dadka Kenyaanku way soo ilbaxeen xagga siyaasadana way ka bislaadeen dadka rabshad diyaar u ah inay dhigaan ma aha anigu sida ila tahay shirar fara badan oo nabadgelyada lagu ilaalinayna waa la qabtay laakiin se anagu diyaar baan u nahay sidii berigii hore to xaafadda laguma soo degdegi doono laba baabuur oo hubeysan ciidamo hubeysan ay la socdaan oo biliiska ah ayaa heegan u ah oo jooga xaafadda abaandulaha ciidamada magaalada ayay ku xiran yihiin si toos ah ayaan ula xiriireynaa habeen iyo dharaarna way wareegayaan dadkaas oo nabadgelyada xaafadda ayay ilaalinayaan waxaad intaasi noo sii dheer goobaha codka laga ridanayo dhan askar diyaar ayaa joogi doonta 99000 oo askar ayaa wadanka dhan lagu firdhin doonaa 99000 oo ciidamo ayaa wadanka dhan lagu firdhin doonaa qaybtan Kamakunjina ciidamo lixaad ayaa la keeni doonaa goobaha codka ay ka dhacayaan oo dhan marka inaba ha yaraatee wax rabshado oo dawladdan iminka ay diyaar u tahay heegan bay yihiin annaguna jaaliyadahan waxaan samaysanaa ciidamo gaar ah oo biliisku ay ka tirsan yihiin iyo niman shicib ah oo Soomaaliyeed oo la shaqeynaya isgaarsiinta telefoonada iyo communicationka raadiyahana ku xiran diyaarna u ah in ay markiiba ay wixii bermada ee looga baahan yahay xaafadda inay soo gaadho marka inaba ha yaraatee wax shaki ka gala dadka iyo cabsi waa inaanay jirin anigu waan joogaa maalintaasi codkaygaan ka ridanayaa xaafadda wax dhibaato oon filanaynana ma jiraan aniga iyo xaaskayga iyo caruurteydana magaaladu anagu kamaanan tagin cabsi aan ka qabno ma jirto marka dadkan cabsidu ay gashay waxaan oran lahaa wax dhibaato ah oo dhaci doonta ma jirto jooga codkiina rita diyaar baanan u nahay xaafadda in la daafaco oo marnaba inaanan lagu soo degdegin ayaan idin ballan qaaday waa gartay adiga waxa tahay TNA waxaad ku taagan tahay isbahaysiga Jubilee isbahaysigana waxa hormuud u ah Ruto iyo Uhuru Kenyatta dad badan waxaad moodaa inay xogaa cabsi ka qabaan maadaama ay niman maxkamad ay ku dhagan tahay ma dhihi karna hadda waa dambiilayaal laakiin eedeysanayaal ah inkastoo lagu wada bisha Abriil maxkamadda Hague niman ay haysato hadii codkiina aad siisaan ama qasaartaan dadka laftirkooda mugdigaas ay qabaan maxaad ka dhihi lahayd taasi waxban kama jiraan labadan qof maxkamadda waxa loogu yeeray dacwooyin eedeysana ahaana way tageen horay way u tageen way soo daafaceen dacwada markay bilaabatana horay bay u tagayaan wax dambi oo ay galeen ma jirto ilaa inta lagu cadeynayo hadii dawladda Kenya iyo shacabka Kenya ay soo doortaan shacabka Kenya labada nin aad bay u jecel yihiin dad aad u tiro badan baa taageersan ma filanayo wax dhibaato oo jirta ma jirto inay jiri doonto maxkamaddu go'aankeeda sanadna kuma gaarayso 2 sanana ma gaarayso ilaa 7-8 sano ay socotaa marka wax laga cabsi qabo iyo shakigaasi waxa warkaasi aad u buunbuuniyay mucaaradka kasoo horjeeda mucaaradku waxay noo muujin lahaayeen waxay wadanka u qaban lahaayeen kartidooda waxay tahay laakiin had iyo jeer waxay nagu noo sheegaan in labada nin dacwad loo haysto eedanayaal yihiin laakiin wax dambiyo lagu haysto hataa ninkii ugu dambeeyay ee mudaawira ahaa dambigiisa in la tuuray ku dhowdahay marka nin la yiri maxkamad baa la geenayaa dambiile ma aha sharciga Kenya iyo sharciga caalamigaba sababta darteeda ayay dibadda u joogaan sababta darteeda ay madaxtinimada u istaagi karaan marka anigu waxaan oran lahaa taasi cabsiyana inaba ha yaraatee ka gelin cod lumaya ma aha labada nin baa midna madaxweyne uu noqonaya midna madaxweyne ku xigeen uu noqonaya dawladda dambena ayaga madax ka noqon doona xisbiyada ama isbahaysida dalka Kenya waa qabaa'ilo ay ku saleysan yihiin waad inoo sheegtay inay qabaa'ilo waaweyn ka soo jeedaan codad badan ay haystaan laakiin muxuu noqon karaa xiriirka caalamka haddii nimankaani ay noqdaan dambiilayaal malse laga yaabaa laftirkooda in Hague maxkamadda ay diidaan iyagoo isku haleynaya awoodda ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya ma jirto shir kasta oo ay tagaan waxay ka sheegeen in maxkamaddu ay tagayaan horeyna ay u tageen oo sid madax banaani ay ugu tageen marka taasi wax dhibaato oo ka jirta ma jirto cunaqabateyn wadanka waxaan loogu soo rogi karaynin sababtu waxa weeyaan wax dambi oo Kenya ay gashay ma jiraan laba ninna wax dambi oo ay galeen ma jiraan maxkamad bay hor joogaan maxkamaddu markay go'aankeeda gaadho baan ogaan doonaa maxkamaddaana kuma dhowa dacwadu iminkun bay bilaabatay meel fog bay jiraan maalin kastana wax kasta iska bedeli doona dacwadaba in la tuuro oo maalinta dambe la yiraahdo wax dambi oo qabtaan ma jirtaaba dhici karta marka anagu yaanan isku dhibin wax dhici doona ilaahay amarkii weeyaan taasi maanta waxa jira
uhuru iyo ruto way taagan yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen bay u taagan yihiin uhuru wuxuu ka dhashay qabiilka waddanka ugu tiro badan 4 milyan iyo 200 oo dadkiisa ah oo kikuyu ah ayaa iska qortay doorashada soo socota waa halka qabiil ee ugu weyn waxaa ku xiga gobolka Rift Valley oo William Ruto uu ka tirsan yahay 3 milyan iyo 600 oo kun baa iska qortay oo 200 iyo 2 kun ay yihiin dad toos u taageersan intaasi markaad isku darto waa 6 milyan iyo 600 oo kun wax gaari kara oo u dhow ma jiraan qabaa'ilka uu ka dhashay ninkan Raila Odinga la yiraahdo milyan iyo 200 oo kun baa iska qortay Kisumu oo kaliya haddii loogu daro 500 oo kun oo Nairobi joogta 2 milyan ma gaarayaan marka qabaa'il 2 milyan aanan gaarayn iyo qabaa'il 4 milyan iyo 200 ah miyay tartami karaan anigu maalin dhowta markii la i wareystay on islii soo maray waxaan tartanku wuxuu ka dhaxayaa faras iyo dameer uhuru waa faras Raila Odingana waa dameer marka ma filanaysaa dameer inuu ka adkaan karo faras ma dhici karto marka anagu faraskan raacsisanahay reer tiro badan oo awood leh buu ka dhashay ganacsiga ku fiican xiriir fiican aan wada leenahay kamukunjina qabaa'ilka ugu tiro badan ee codkooda ridanaya maalinta doorashada waa Kikuyu anaga ku xigna marka anaga iyo Kikuyu isbahaysanay Soomaalidu waa 720 kun oo cod Kikuyadana waa 30 kun 750 baan nahay labadeena kaliya marka inta kale oo dhan hadii la isku daro waxna gaari kara male 750 kaasi kun haday codkooda qultaan waa gartay adiga hadda isbitaalaad ku jirtaa dadka Soomaalida cabsi badan ay qabaan hadii doorashada ay dhibaato ka dhacdo maxaad u qaban kartaa adigoo aan meeshina tagi karin anigu moogtahay lugaha ayaa ijabay lugaha ayaan ka kabanahay laakiin meel kale oo aan dhibaato iga haysata ma jiro waan hadli karaa waan socon karaa oo waxaan ku socdaa shirarka waan taga marka wax aan u qaban lahaa dadka Soomaaliyeed shalayto oo maanta u qaban kareenin waliba maanta aan ka dhiirsanahay maanta aan ka geysisanahay maalintii horeeto maanta ayaan diyaar u ahay dadka Soomaalida wixii aan u qaban karno inaan u qabano horeyna hadda waan u muujiyay hawshan anigu qaban karo xildhibaannimo oo ma aha uun hadal marka inaan qof cusub oo maanta soo toosay qof dhalinyaro oo aan waaye aragnimo iyo aqoon lahayn inaan waqtigeena ku limino inaan codkeena ku limino miya haboonta marka meesha xildhibaanka hadal laga rabo hadalkan ku filan tahay hadal hadda anigu dadku iima dooranayaan inaan kubad ciyaaro ama si inaan tartan orod galo labada mid kuma jiro tartankeedii waxaan ku jiraa tartanka codka iyo hadalka iyo meelaha xafiisyada waaweyn ee dawladda inaan galo oon wax idin kaga soo qabto intaana diyaar baan u ahay xoogeedina waan leeyahay haddii aad guulaysataan oo xisbigiina uu soo baxo maxaa ballanqaad u sameynaysaa dadka Soomaalida ah ood leedahay madaxdayda ama madaxweynaha xilligaas Uhuru uu noqdo waxaan ka keeni karaa anigu meel aan fadhiyo oo Uhuru Kenyatta uu madax ka yahay xuquuqda dadkeena waan ilaalin karaa oo mar dambe lagu ma xadgudbayo xuquuqda dadkeena mar kale looma caga juglayna dadkeena mar dambe ciriiri lama gelinayo hantida dadka Soomaaliyeed si joogto oo sharaf leh baan wadanka ku joogeen anigu ballanka aan qaaday waa intaasi diyaar baan u ahay inaan anigu naftayda u huro xuquuqda iyo hantida iyo danaha dadka